السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك دي لبسيني 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 وجنالكي ومدن حسين وجنالكي مدن حسين كسر دوادا مرك كوباد يا مرك لباد يا مرك صدحات با كسر دوادا جنالكي مدن حسين maxaan maanta inii wadnaa maanta waxaan wadnaa sheeko argagax leh shirka laga yaabay ilmo yar oo la googooyay oo xaafadoodii dherigii baris mawliidka lagu karinayay adoo nool weligaa dherigii baris mawliidkaaga lagu karinayay ma lagugu sii riday ma lagugu sii riday yaa ma lagugu sii riday way dhacday dee hadday dhacday way dhacday ma garatay adduunka naxariistay way ka dhammaatay dhulalka qaar ma garatay sidaa daraaddeed waxaa dhacday ilmo yar oo soomaaliyeed oo 11 jira inaa la qaado oo nolosha lagu googooyo kadibna lagu rido dherigii lagu karinayay baris mawliidka qofku markuu dhinto dheriga lagu kariyo raashinka lagu rido ayaa dhacday waa sheeko la yaaba sheekadan maanta ayaa dhacday waa sheeko cajiib yaaba weeyaan argagax leh qof damiirla ma qaadan karo la socda bal gabdhahay galay ay ka kala ordayaan oo cunugteen waa dhama digsi ku jirta ay ka dhahayn guriga soo baxay arrin ay ka argagaxeen qoyskii halkan ku noolaa iyo dadka deriska ah ayaa lagu arkay gurigan iga dambeeya gabar da'adeeda lagu qiyaasay 10 ilaa 11 jir oo muddo la la'aa ayaa meedkeeda halkan lagu arkay iyadoo inta dabcan la dilay haddana digsi mid ka mid ah digsiyada cuntada lagu kariyo lagu dhaxriday ayaa qolkan la dhigay waa la googooyay sida ninkan wariyaha inoo sheegayo waa la dilay kadib markii la googooyay dherigii weynaa ayaa lagu dhaxriday qofta yar waa la raadinayay maalmo badan ayaa la raadinayay oo la doodoonayay kadib maalmo badan markii la raadinayay ee la doodoonayay xaafadii ayaa ur dareentay waxbaa ka dhex uray subxaan allah xaafadii markay ur dareentay ay wax ka dhex ureen kadib waa la doodoonay malaha jiir bay ku baktiyeen meelahaas waxbaa la yiriiri markii la raadiyena waxaaba la soo helaba ilmihii yareyd oo sidii khaashuqji loo dilay loo googooyay oo dheri lagu riday subxaan allah ehelkeeda markay la'aayeen ayaa waxaa la dareemay urka ka soo baxaya guriga kadibna waxaa la gartay in halkan ay wax ku duugan yihiin isla markaana baaritaan markay sameeyeen qoyskii waxay arkeen gabadhoodii muddada ay la'aayeen oo digsiga ilmahaagii aad raadinaysay aad doodonaysay ehelka ayaa la hadlay ka waran iyadoo kistiga ku dhex jirta ama dherigii ku dhex jirto la googooyay aqalkana lagu dhex qabeeyay aaway hooyadii dhashay ilmuhu aaway aabahii dhalay sida dadku noo sheegayaan iminka waxba la xidhay oo askarta u xiran hooyadii dhashay iyo aabihii ilmahan dhalay hooyo adigoo hooyaa ilmahaaga intaad googooyso dheri ma ku ridi lahayd aabbo intuu ilmihiisa googooyo dheri ma ku ridi lahaa rabbi subxaan allah rabbi ciisat cama yasifuun ilaahu kaa magan waxayna ka warbixiyeen sida halkan ay wax uga dhaceen eedadeeda ay xaafad kala degana guri ma degana gabadhii allaayano maqrab dukada liiba xalir gabadhii allaaya waa guriga nimid gabadh raadisa aad mikrofon qaadana oo weydis raadis Facebook in la dhigo iyo in idaacadaha wacan oo sheegna ama aragta gal ilaa idaacadaha laga wacay meel kasta laga baafinay wala doonay ilmaha yar waba ilmo yar oo aqal ku dhex aasanba subxaan allah subxaan allah subxaan allah subxaan allah ayna almuslimiin aw ummadii muslimiintu war ma sidaas ay noo dambeysay Soomaaliya ina ilmo yar la googooyo ilmo inan yar oo waxba galabsan oo 11 jira ina aqalka dhexdiisa lagu rido aw damiirkii subxaan allah subxaan allah inta galeysay ishale iyo xale intaas la een maantana saaka aabay xasaad meelo baawurta oo laga raro gobolada raadisa su'aade gabdho labo kale oo eedi iyo oo eedyaale iikan waxay aadeen in meelahaas ay maaragtay soo baad goobaanay mikrofon wareega ana kan waa socdaan tabaan guriga joogno guriga urka dar ee googooyo ee dheri ku dhexdeeda waa ayo waa kuma qofkaas waa yaab ana de guriga dhexdiisa urka laga dareem dowl ma ku dhintay meel walba isla marna digsi kor saarnaya banaanka u soo bixiye dharaasa ku jiro dharka bixiya uri ama mukuleel ku xaartay dowl ma ku dhintay guriga maxaa ku jiro
markii dambe xaar gurigaas shumaca laga soo bixiyo shumaca la soo laabo hoostiisa hilib ama malaa iyo wax mukuleel ay keento dawla isku jira arkaa la soo bixiyo haddii gabdhaha gale ay ka kala ordaayaan oo cunugteen waa dhama digsiga ku jirta ay ka dhahayn guriga soo baxeen wax hadda familka ama waxa dagaal iyo diris iyo dagaal ka dhaxeeyay manala sheegin laakiin gabar ayadoo iska yar oo 10 jir ah oo iskuul iska aad jirto hadan iska ma jirto waxay cun jirto iska naqo jirtay marka waxa laga filaay moogtahay marka waxaan hawlo sheegay gabadhii markii la waayay oo iskuulka ay ka timid noqoshadii ay iridka noqoto gabadha iskool bay koronto horta la waayay noqoshada ay noqotay aqal gajirtiba kooraankii waa la baqtiyay korontada yani waxay leeyihiin u yaqaanaan kooraanka kooraankii waa la baqtiyay kooraankii markii la baqtiyay dam tiyaad waa la qabsaday waa sidii khashuqji Istanbul loogu dilo kale tiyaad waa la qabsaday hog baa lagu ridayba dheriga lagu sii kariyay bal ka waran adiga oo maxaan ku nool hadii dherigi mawlidkaaga lagu cuni lagu sii kariyo subhanallah maqneed 2 saacadood ciyaalkii mi isdheen koronto maxay maqan tahay hooshooda iska raxdeen ilaan gabadhan waxa lisnahay ayada iska maqan doonto meelahan ku maqan tahay qaraabada ay ma aaday ama dumar waayo hata gabar waayo gabadha waxa liir 9 sano oo kala taa gabdhaha lagu guursaday ama nin la qabta wala isdahay sidoo kale halkan aan joogo waa iskuulka ilaahiga ummadaada u gargaar ummadaada ilaahu soo hadee ilaahu waxa falka ku dhaqmay soo hadee baan leenahay waa yaab uma yar waa yaab aniga damiirkaygu si kale u noqdayba waan yaabana wali hada waan fajacsanahay ay dhiganaysay gabadha yareed sida arxam darada loo dilay meedkeeda gurigeeda laga helay nafisa waxa ii waramay ama dugsiga ay ka tirsanayd weeyaan markaas muxuu sheegi doonaa ninkaasi macalinkaas adeerkeed maxamed geelle oo isagu maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa xaafadda dhacdadu ay ka dhacday iyo sidoo kale macalinka iskuulka ay dhiganaysay oo isagana ka warbixiyey xogta iyo sidoo kale xilliga ay ka war heleen in nafiso la waayay adeerkeedan ahay oo aabbahay la dhashay axad galabtii 12 adeerkeed aabbahay la dhashay wuxuu sheegay waxa la waayay axad inay tagtay oo la sheegay teerna maanta maxaan joognay arbacaan joognay isniin iyo salaasaba waxay ku jirtay aqalka dhexdiisa ku aasnayd iyadoo la googooyay oo dhari ku jirta qofkii bal iimaanka qofka daawada qofka yar maxay ka cuntay xaasidnimo weeyaan يعني قفك حاسد كأ وحكستو إيمانك هدونا قفك إيمان لهين أو إيمانك سمقية هاي أو بحاكر هذا حاسد هاي وحكستو كل واقع كرا وحكستو السمين كرا وصاد رديد تاسويا بروبلمكو تاسويا كبعد ماشي ودبي وركض ماشي لواي dadka guri joog ma kala weydiin banaanka cambu doontay ay sheegeen baaritaan intaan ku jiro raas hadda meesha laga arko meydkeeda oo dadka aan arkeen iyadoo dugsi ku jirto oo hadda dhaawac ku yeelo xirxirana la sheega marka warkeed meesha soo yahay oo wax kale oo dheeraad iyo tuuhin iyo ma hayn hadda baaritaan loo maqan wax ka soo bax waxaa dhacaysa isla habeenkii inaan soo waco nan dhaho maxaan ku yiraahdaa kabaramo ama gabdho saaxiibadeeda israacin bal waxaan sameynay iyadu waxaynu ahayd fasalka afraad ee dugsiga hoose waxaan wacnay koowaad ilaa afraad wixii gabdho ay saaxiib ahaayeen macallin wiilal ilaahay wuxuu xaalay in la dhaho maxaan ku yiraahdaa anaga weli mana soo gaarin mise mana arkin anagan mana raacin gabdhii inay dhahan maalin kale waxaan ka sii sheekayno iyo wax laga sii hadlaa ma jiro laakiin wixii waxa ku dhawaaqa falka sameeyay inaa la soo helo weeyaan maxaan ku raadayay intaas ayaan barnaamijkeenu kusoo gobinaynaa waxaan iga codsanayaa barnaamijka inaad dhammaysataan od like iyo share iyo subscribe sii gaarsiisaan dadka ayaan iga codsanayaa waa janaalkii mudane TV. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.